ku xidhnaa waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Texas waxay 2016 bay ahayd runtii waqtigan xabsiga ku jiray maansooyin badan baan ku xuriyay markii hore dee kulay waan gabi jiro heesaa iyo gabiyada baan sameyn jiray laakiin tani kuwani waxay kaga duwan yihiin markaan xabsiga ku jiray ama qofka xabsiga ku jiro waxyaabo badan xuriyada haystay buu waayay oo ay ka mid tahay isgaarsiinta social media iyo halka bulshada kala xiriira telefoonada iyo yaraada bulshada caadiga ahayd oo la sheekaysan jiray oo day yaraata xabsiga markaan ku jirnay maansadan caanab sidee ku timi baan yar kaaga sheekeynaya Umar xabsiga markaan ku jirnay waxa dhacday horta rag dumar isma arkaysan Soomaali iska daay dumarka cad xitaa isma arkaysan maxbuus baata waxa saragtan kaliya waxa weeye gabadh sarkaalada oo ciidamada ku ilaalinaya oo lebisan oo aan dumarnimo ka muuqanyadana marka waxa dhacday waqtiyada kamida rag dhalinyaro badan baan nahaynoo iska sheekaysto oo marka waniyo gabadhaas anagu ku haystaaba dhalinyaradu iska oranaysa waniyo anigu taasabaan ka helayba macnaha de madadaala bal ka dhiganaya waqtigaas habeenada kamida ayaa waxa dhacday gabadh baa shaqada soo gashay gabadhaas dhowr jeer horena shaqada way soo gashay gaarka nagana ilaalinaya marka gabadhu waa gabadh Mareykan oo askariyada sarkaalada waliba marka waxa dhacday gabadhii ayaan ku dhalinyaro anigu gabadhaas sabab ku haystaaba akhlaaqdeeda iyo wanaageeda runaantii iyo quruxdeeda way bay soo jiidatay aniga markaas ideen warayay abwaankii uu degdegayaa warniyo yalla faaga lagu xidhniyo markaas aan ku riniyo anigu aanu sheegtaaba aan doonayaa jacaylkayga gabadhane caawa ila taga hadii aan anigu u tago keligii wala xidhayaa meel dadka dee lagu ciqaabaa jirto oo jeelka ka sii hooseysa markaan iyo halka dooni ma ayaan tagay kaliya laakiin hadii dhamaantiin wada tagno cidina halka inama geenayso saaxiib markaa ila taga waa laga kala farxaday waxa leeyahay anagu kuma jirno niyo marka maansan ka bilaabay halkii qaybna aan gabadhii kaga sheekeynayo qaybna aan kaga sheekeynayo inay de gabadh sarkaalada toon lagu dhici karayn qaybna aan leeyahay warnimayo maxaad gabadha oo iyaga laftigooda saaxiibaday marka ana bisaas horta ku bilaabantay marka ayada kulli sharaxaysa qaybaha dambe aan siiradu taago waxay oranaysaa cabaariyaha ku yaaliya gacmaha shaashka cududeeda indhaca la moodiyo wajiga caadil ku abuuray cudoonida talaabada markay faalla cuganayso cod yaraanta waxaad moodaysaa geeyo camalkeed cadaantiyo jidhkeedaad sidii curubta moodayso ninkii calaf ilaah ugu daraa wuu cayilayaaye anna waxaan la caataysanahay canab daraaddeede sidii aanu caashaqay hurdadu way igu ciririiqe cunadii daraaddeed ka go'ay taanu ciilahaye ciddii aanu sheegaba anay igu ciyaaraan dhallinyaradanu saaxiibada ahaynaan u sheegtay kaftan bay u qaateenba mari sidhi caddaan ugu badheedh oo sheego cudurkaaga misna waan cabsaday oo ka baqay inay isoo caydo inay igu tirahdo maxbuus baa tahay umana qalantid inaad jacaylkaaga ii sheegatay sirrinteedaad intaasaa igu filaan lahayd marka waan sii garnaqsanayaa kulleed wixii ay odhan lahayd waan garanayaa misna waan cabsaday oo ka baqay inay soo caydo mari sidhi nin ragi ma cabsadee uga nasiibkaaga war wax kastaaba kaaga dhacaane gabadhan iyo sheego intuu hadalku ku gubi lahaa misna inaan xabsiga misna waan cabsaday oo ka baqay inay soo caydo mari sidhi nin ragi ma cabsadee uga nasiibkaaga misna inaan xabsiga ceeb u galo waan ka cagajiiday oo waxaaba nasriniyahow bari baa lagu sheekaysano dhalinyarada saaxiibadan warninkiniyo xalay buu de yaa kawde mari sidii cabaar daawo oo caawa yara seexo misna inay carroodaan ka boqon cara ka sii qaado de habeen barkaaba la bedelayaaba ilaa waa shaqaale waa askariyeed misna inay carroodaan ka baqay oo cara ka sii qaado mari sidii qoraal ugu cadee canab jacaylkaaga misna inay caasada ka baqay duulku waa cadawe dumarku de dad jacaylkaaga u sheekatan Soomaaliya gaal waxay doonaan noqdaan kulliba markaas may sixir sare garacanaysaa sida la sheegay cakuye naag sarkaalada ninkii dooxu kaga ciiray ee aan codkana dhiiban karin caashaqna u liita cilada ninkii garanayo maanta iga caawi warbal ninka naag sarkaalada jeclaaday ee aad caashaqeedu ugu daran yahay waliba aan codkana u dhiiban karin ee deeyadii waxba u sheegan karin bal arinta ninkii garanayo gala talibay xaaladu ku soo ururtay aad iyo aad waxa la raad marka canab qisadeedu saasay Umar marka canab halkii baan ku joojiso lama hadlino waxaan sidii war dhibintan ka baran kororsanoo runaantii intana dabada misbay noqotayba anta laftigeedu
adduun magac baa ka hadha taariikh baa adduunyada ka hadhow kolley dee markii aan intan sameeyey aniga laftigeyga waan yara nafsi oo xaaladda aad iyo aad haa oo naftaydii dee runtii waa inaad dareentaa caqabadda ka sokaysa iyo ooda ka sokaysa mushkiladdan dee meeshana ku socoto marka haa marka intaasay ku dhamaatay canab sheekadayda sheekadaas waa gartay